وزيرك وزارة waxbarashada gudoomiyaha guddiga qandaraasyada gudoomiyaha gobolka maamulka shirkadda Canadian Energy dhammaan maamulka iskuulka iyo ardayda waxaan ku salaameynaa iyo shirkadda hirgelisay hawshan salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bacda salaan maanta kulle waxaan joognaa iskuulkii Burco Academy waxaynu joognaa inaynu xariga ka jirno mashruucii korontada ee ay hirgeliyeen laba shirkadood Canadian Energy iyo CPC Corporation Taiwan oo ah solar in laga caawiyo iskuulka qaybta renewable energy ama solarka runtii ka dawlad ahaan ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan oo jiriyo waxqabad waxaanu dhiirigelinaynaa mar walbaba in dadku ay ka faa'iideystaan tamarta cusboonaata sida solarada oo aynu ka maarano injiinada iyo shidaalka badan isticmaalaya runtii markii ay noo soo jeediyeen shirkadda Canadian Energy iyo CPC Corporation in iskuulkan Burco Academy laga sameeyo solarkaasi waa la qaadanay waana ku dhiirigelinay in mashruuca la hirgeliyo waxaana uu ka mid yahay runtii waxyaabaha ay wasaaraduna hormood ka tahay shirkadahana aynu ka doonayno inay bulshada ku celiyaan oo bulshadu ay wax ka helaan waa community social responsibility way waa la qaadanay waana uga mahadcelinaa sida ugu dhaqsaha badan lay ku fuliyeen waxaan rajaynaynaa insha Allah intan iyo ka badana in halkan iyo meelo kale oo kala duwan ba laga sameyn doono mashruucan iyo mashaariic kale oo ka badan ba ummaduna ay ka faa'iideysan doonaan wasaarahadna aan ku kormeerayno mar walbana aanu wixii bulshada wax u taraya uga faa'iideyn doono insha Allah waxaan rajaynayaa iskuulku iyo maamulkiisu in ay ka faa'iideystaan daryeelaan sida ugu fiican u isticmaalaan mashaariicda laga fuliyay wixii bulshada lagu celinayay oo ah shidaalkeena kheyraadkii wadankeena oo ah gobolka Togdheer gaar ahaan tuulada Xood ceelka Toosan on insha Allah dhawaa rajeynayno insha Allah mustaqbalka dhow inaynu arki doono kheyraadka dhulkeena oo dibadda aynu soo saarnay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh